aan aniga asagoo isqabin uu leeyahay wada raaxaysano aan ku galmoodo oo markuu arko uu leeyahay dareenkayga ka caaya saan waaye jacayl iyo xiriir ayuu la sameeyay si uu si xaaraan ah ula raaxaysto oo wax waliba uga samaysto dhinac walibana uu ka maro hase yeeshee waa ay ka diiday waxa uuna qaaday tallaabo halis ah kadib markii uu sixraday gabadhan aad u jeedi kartaan ee quruxda alla ku arsaaqay ninkan horta markuu isixray kadib meel walba oo soo waco yira iigu imo halkaasan jooga iigu imo waa ordaa u tagaa waxyaabo anshax ka baxsan oo ila soo aada anigii waxaan is arkayaa diyaar u noqonayo ilaa qof sixrana ahay ani maskaxdaydu asagay jirta oo qof isxakameyn kara maahi qofka aan ka hadlayo waa Muna Cabdinaasir Maxamed oo dhowr bilood ku sixranayd gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana sixir halis ah u geystay ninkii ay xiriirka jacayl ay la samaysay oo in muddo ah ay wada socdeen dhinac waliba ayuu ka maray waxa uuna ku qancin waayay in gabadhan uu gogol la tago halkaasina ay ku kala xaajo gutaan waliba si xaaraan ah markii uu u taag waayay dhinac walibana uu ka maray balse ay diiday qalanjadan waxa uu qaatay go'aan halis ah kaasi oo ahaa in uu u tago dad faalalow ah sidaasina loogu sixiro gabadhan ay aad arki kartiin meeqa bilood ayuu daminkan sixirka ah socday sidayse iyadu ku ogaatay in ay ninkan u sixran tahay muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa xogo badan oo ka qarsoon oo ay gabadhan inala wadaagtay balse marka hore daawada waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si saaxiibo badan uu gaaro una share garee saaxiibada Facebook kugu weheliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale qaybta hoosena uga dig gabdhaha uga shakisan tahay in ay rag u sixran yihiin oo mar waliba ragga guryahooda taagan waad ku mahadsan tahay daawade la jahanqaadkaaga ani marka waxaan ahay gabar oo la sixray dhammaan waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay muuqaalkan sii share gareyso wallahi qisadan si dhab ah iigu dhacday Muna Cabdinaasir Maxamed waa gabar da'yar ah noloshana lagu ciilay waxa sidaas u galaya waa wiilkii ay ragga Soomaaliyeed ka calmatay oo ay doonaysay inay la dadab gasho balse Muna dhowr jeer ayuu ka dalbaday saaxiibkeed inuu la sameeyo galma xaaraan ah iimaankeeda oo kaamil ah waa ay ka dhaga adeegtay arrinkaasi balse habeenada kamid ah ayuu sixir u maleegay haatanna waxa ay ku soo aruurtay gabadhan aad u jeedi kartaan 40 mitir ay dhex fadhido bal Muna ha inooga sheekayso sida uu saaxiibkeed uu u sixray iyo sida ay u ogaatay in ay sixran tahay iyo talaabooyinkii ay qaaday kadib markii ay ogaatay in ninkan ay u sixran tahay magacayga waa Muna Cabdinaasir Maxamed waxa haysto maantay arin cajiib ah rabaa inaan dadka shacabkiisa ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago in wiilba jeclaaday meel aan isku soo aragnay waa jeclaaday in badan aan wada soconay barnaamij oo wuxuu igu dayay maalayacni iyo wax qiyaaliya inuu barnaamijka wuxuu ahaa yacni aan wada noolaano aniga haddaa i jeceshahay oo ii baahan tahay inuu jacaylka iyo baahida aan u qabo oo iga faa'iidaysto rabay aniga marka jacaylaan u qabay dan kadib muddo saan u daba socday in alcamuum wuxuu sameeyey aniga xoogaa marka waa ka gaabsaday waa ka laciif yacni sida hore uma aana noqon waxyaabihii uu ila yimid waxaa ka mid ahayd ani asagoo isqabin oo habeen guri ku wada sheekaysanayno oo dhahay aan wada raaxaysano waxyaabo anshax ka baxsan oo dhaqan xumo aniga dareenka iyo markaas baahida iyo jacaylka u qabo rabay inuu iga faa'iidaysto marka alxamdulillah ilaahay qadartiis maba dhicinba dan wuxuu sameeyey aniga xoogaay waa ka gaabsaday waa ka laciifsaday sida hore ma aanan u ahayn marka dhar iyo alaab iyo hadiyado iyo adduunyo ii keenay waxaan is dhahay maasha Allah ninkii Ilaahay baa ku soo jeediyo ku fiicnaa aniga marka sidii hore sida ahay waaba ka sii darabo ilaa sixir iyo balaayo ii soo hoosgeliyay anigii waa xanuunsaday waa jiraday waxyaabo sixir iyo waxyaabaas uu adeegsaday bas ani waxaan sameeyay waa baxay meel cilaaj quraan saara tagay macallinkii quraan saara wuxuu dhahay sixir ku haysto mariya saas noocaana margu keenay ma yacni mariyihiina kookradaas hadda kamid ah iyo dirceeda oo sad ah
iyo halkana taraaxadeeda maryahaas hadda kamid ah. Googaradan waaba la yaababa markuu ii keenay nin googorad keenaya waa anoo sida iskaga yaabana isdhahay jacaylkaaga maadaama uu yahay dhibaato kulama rabee iska qaado. sidii aan dhowr jeer googaradii u gashtay anigii waaba kasii daraba heer waxaan gaaray meel walba jiro aan ka raadsho anigii wareer rafaad in badan oo soo silciyay soo rafaadiyay. Marka dharkan waa dhar uu sixir ii soo marsiiyay oo waxyaabihii hore aan ku hayay waxyaabo ka daranba uu ii soo adeegsaday sixir uu ii soo adeegsaday. Marka ninkaas waxa la dhihi karo bini aadan maba ahanba. insha Allah shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in niyadeeda Ilaahay ii qaboojiyo ii soo duceysiin oo alxamdulillah hadda waa roonahay waa la quraan saaray quraana ilaa hadda ugu socdo. sheekhu wuxuu ii sheegay wuxuu dhahay sheekhu horuba ka sheegaba 3 shay ma lagu keenay haayaan dhahay sheekhu 3 shay oo lagu keenay sixira lagu soo marsiyo dhahay oo ninka sixir uu ku soo marsiiyay. sheekhu Mariya wuxuu dhahay gubo ii dhahay Mariya hadda saa u jeedin waa gubaya. markii uu sixir kadib waxaan sameeyay aniga markii uu isoo waco yacni aniga dhan waa naxa waa aniga dhan waa kala badbadana waa farxa aniga dhan waa orda u taga waxyaabo aan shax ka baxsan oo Ilaahay aan sameeyno aniga alxamdulillah qof iimaana lahaay Ilaahay Ilaahayna iga qabtay waxyaabo aan shax ka baxsan oo 24 saac igala daba wareegi jiro bini aadanimada aan ku jirin sida aan aniga asagoo isqabin oo leeyahay aan wada raaxaysano aan ku galmoodo oo markuu arko uu leeyahay dareenkayga ka caaya saan waaye aniga marka alxamdulillah waxaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanayaa oo aan idin soo hor fadhiistay in la ii duceeyo. waxaan gabdhaha Soomaaliyeed uga digayaa in rag uma wada xumaa laakiin rag qaar inay yacni ay jiraan inay gabdhaha duruufo uga faa'iideysanayaan inaan u sheegaa rabaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ragga xun iska ilaaliyaan. rag uma wada xumaa laakiin qaar xun oo sixir iyo balaayo ku adeegsanaya sida hadda ninkan oo kale wax uu ii reebta haba yaraatee ma jirto. ninkan horta markuu sixir kadib meel walba oo soo waco iigu imo halkaasaan jooga iigu imo waa orda u tagaa waxyaabo aan shax ka baxsan oo ila soo aada anigii waxaan is arkayaa diyaar u noqonayo ilaa qof sixirana ahay aniga maskaxdeyduba asagay jirta oo qof is xakameyn kara maahi. markaan ku fahmay oo in sheekhi la ii geeyay oo la quraan saaray marka aniga waa wacay waxaan dhahay saasaa tahay nabadgeli taleefankii iyo wixii dhan uu igu yaqaan xataa waa iska tuuray. marka alxamdulillah quraana ilaa hadda ii socdo waa fiicanahay.